وحقوقنا مالك نوهليا afhayeenka golaha federeeshanka dowladda federaalka Itoobiya Aadan Faarax Ibraahim iyo wafdu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay caasimadda dowladda deegaanka ee magaalada Jigjiga. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, afhayeenka baarlamaanka deegaanka iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal. wafdiga ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loogu diyaar garoobayo xuska sanad guurada 15aad ee 29 Hiddaar. afhayeenka golaha wakiilada shacabka deegaanka Soomaalida ayaa ugu horeyn madasha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha federeeshanka ee dowladda federaalka Itoobiya Aadan Faarax Ibraahim. xuskii 15aad ee Hiddaar mudane afhayeen mudane madaxweyne iyo marti sharafta waxaan idin leeyahay waxaan diyaarinay dhismaha gudiyada munaasabada qabashada shirka guud macnaha heer deegaan iyo shir hoosaadyo ka dhac macnaha aan gudiyo ugu dhisnay heer gobol iyo heer degmo. koobka dhaqanku wuxuu u taagan yahay kala duwanaanshaheena, isjacaylkeena, nabadgelyadeena iyo wada jirkeena, midnimadeena. mudan yaal iyo marweyn inkastoo xafladii weyneed ee inaga horeyso tan waa hore dhaci aan ugu talagalnay inaan macnaha ku soo dhaweyno xafladda guud ee dalka ka dhici doonta. xuska 15aad ee 29 Hiddaar sanadkan ayaa hal ku dhig looga dhigay sinaanta iyo midnimada qoomiyadaha aan ku xaqiijino barwaaqadeena. afhayeenka golaha federeeshanka dowladda federaalka Itoobiya Aadan Faarax Ibraahim ayaa soo hadal qaaday tallaabada military ee dowladdiisu ka qaadayso xogaga TPLF ee gobolka Waqooyi. munaasabadan maanta waa mid aynu ku shaacinayno inay si rasmi ah u bilowdeen hirgelinta barnaamijyada xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya. si loo ogsoon yahay 29 Hiddaar waa maalintii ay dhammaan wakiiladii qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeenu ansixiyeen dastuurka dalkeena. markaynu eegno waayaragnimada caalamka, wadamada caalamku badankoodu way xusaan maalinka la ansixiyay dastuurka, waxay dhahaan waa maalinka dastuurka. waxa xaqiiqa dalkeenu inuu yahay dal ay ku dhaqan yihiin qoomiyado kala duwan, dad diimo kala duwan haysta iyo afkaar siyaasadeed iyo waxyaabo kale oo lagu kala duwan yahay inay dalkeena jirto. kolka dastuurkeenu wuxuu dhigayaa in aqoonsiga loo baahan yahay la siiyo kala duwanaanshaha oo qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena la ixtiraamo isirkooda, dhaqankooda, luqadooda, taariikhdooda iyo wixii la mid ah. midnimada aynu dhisaynana inaan ku salayno kala duwanaanshaha, diversity-ga inaynu ku salayno ayaa la rabaa. kolkaas si taa loo muujiyo ayaan markaa u samaynay calaamadan. kooxdii gulucadka ahayd 27 sano ee ku horreysay isbeddelka deegaankeenna dhibaatooyinkay u geysteen, dilkii, dhicii, kufsigii ay noo geysteen aynu garanayno, ay dagaal ku soo qaadeen ciidamada difaaca qaranka oo waqti xaadirkan si loo sugo sarreynta dastuurka dalka, sarreynta sharciga si loo sugo, isla markaana dambiilayaasha waddanka oo dhan inay qasaan raba, qalalaaso siyaasadeed inay waddanka ka abuuraan raba, dhaqdhaqaaq lid ku ah deganaanshaha dalkeenna kuwa wada sidii sharciga loo horkeeni lahaa, maadaama dadaal loogu jiro oo ciidamada difaaca qaranka iyo booliska federaalkuba ay hawlgal ballaaran ka wadaan deegaanka Tigreega. waxay naga mudan yihiin inaynu garab istaagno. waxyaabaha aynu ku garab istaagaynana waxaa kow ka ah dhiig shubid, dhaawaca u baahan dhiig inaynu ku caawinaa laga maarmaan ah. kolka dhiigga laga ururiyo deegaanka Soomaalida wuxuu noqon doonaa mid deegaanada kale aan u dirayno, sidoo kale ciidamada difaaca qaranka. madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo munaasabadan khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay inay taxadar dheer iyo ka muujiyaan aragtiyada xogaga TPLF. ahmiyadda ay leedahay maalinkan waxa aad loo dheeraaday oo ka hadlay mudane Aadan Faarax Ibraahim oo ka hadlay
waxyaalihii ka jiray dalka 27 sano ugu dambeeyey waxaan sii adkaynayaa in shacabka ay ka taxadaraan kana feejignaadaan afkaaraha xoogagii shalay hore ku takrifalay awoodii ay lahaayeen ee shacabka deegaanka Soomaaliyeed iyo ka dalka Itoobiya qoomiyadaha oo dhan u diiday xuquuqdoodii ee madaxa kaga taagnaa ee dastuurkii ka dhigay warqad qoran oo meel iska taalo oo cidina ay ixtiraamin oo maanta markii intay dadkii shucuurihii Itoobiya oo ay Soomaalidu ka tirsan gacmaha iska qabsadeen iska dulqaadeen dabayaaqadii maanta ku baraarugay in dastuurka la ixtiraamo inay fiican tahay kana hadlaya in dastuur la ixtiraamo iyaga oo ka shaqeynaya falal lid ku ah dastuurka laftigiisa afhayeenka golaha federationka dowladda federaalka Itoobiya Aadan Faarax Ibraahim ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar guddoonsiiyay koobka midnimada qoomiyadaha Itoobiya xilli loo diyaar garoobayo xuska 15aad ee maalinta qoomiyadaha 29 Hiddaar. ugu dambeyntii madaxweyne Mustafa Aadan Faarax Ibraahim ayaa si wada jir ah dhig ugu deeqay ciidamada militariga Itoobiya ee ka dagaalamaya jiidda hore ee waqooyiga. Shucayb Absiye, Hon Cable TV, Jigjiga.